dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran war ka soo baxay waxaa digniin adag loogu diray nidaamka Israel waxana ay sheegtay Tehran warar kasta oo lagu qaado kaabayaasheeda dhaqaalaha inay kaga argudan doonto weerar gaar ah oo ay ku bartilmaameysan doonto nidaamka Israel madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay weerarada ciidamadiisu ay ku hayaan dowladda Iran in aysan doonayn markan inay qayb ka noqdaan nidaamka Israel isla markaana dagaalkana loogu baahnayn wax kaalinana uusan ku lahayn ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu wada hadal gaar ah ayaa galabta dhaxmaray madaxweyne Trump iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Netanyahu waynu eegi doonaa waxyaabaha isla soo qaadeen wadanka Jordan waxa uu iminka dib u qiimeynaya sawaariiqdii ay ku garaaceen ciidamada dowladda Iran Abdi Fattah al-Sisi madaxweynaha dowladda Masar ayaa markii ugu horeysa ku dhawaaqay wadankiisa in ay gacan siin doonaan dowladaha Carbeed ee dhibaatooyinka wajahaya dhaqdhaqaaqyo adag oo diblomaasiyadeed oo ka taagan gobolka bariga dhexe colaadaha laga soo afmeerayo ayaa sii xoogeysanaya iyadoo dowladda Qatar ay maanta wafuud dhaxdhexaadayaal ay u dirtay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran wada hadalladan dowladda Iran markan ma aaminaysa Mareykanka iyo waliba xulufadiisa waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku lafagurayaa khiyaarta ay nala socotay tabintan gaarka xunaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay ka codsatay Washington in la sii wado wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac Trump ayaa sheegay in Washington ama Mareykanku ay ogolaadeen codsigaasi balse ay si cad loon mugdi lahayn loogu sheegay buu yiri Tehran in xabad joojintii hore ay dhamaatay Mareykankana ay suuragal tahay wada xaajood kasta oo dib loogu laabanayo in qodobo kale oo dheeriya uu miiska soo saaro madaxweynaha Mareykanka waxa uu xusay in kasta oo wada hadalladu ay sii wadi doonaan haddana Mareykanka uusan u arkin heshiiska xabad joojinta mid wali jiraya isagoo carabka ku adkeeyay in fariintaasi toos loogu gudbiyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Iran hadalka Trump ayaa imaanaya xilli ay wali socdaan dadaallada diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu xalliyo xiisadda sii cuslaanaysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la hadlay telefishinada ugu caansan wadanka Mareykanka mid kamid ah ayaa waxa uu sheegay dagaalka kala dhaxeeya wadanka Iran ciidamadiisa gaarka ah in markan aysan kaalin ku lahayn nidaamka Israel oo uusan doonayn ciidamada Israailiyiintu inay qayb ka noqdaan howlgalladan gaarka sida uu hadalka u dhigay saraakiil Israailiyiin ah oo la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo isna hore wareysi u bixiyo uu tilmaamay in Israel aysan ku lug yeelan doonin howlgal kasta oo military oo cusub oo ka dhana wadanka Iran saraakiishan ayaa sheegay in qiimeynta ugu badan ee jirta Israel ay tahay in Trump uusan doonin in dib loogu laabto dagaal ballaaran oo lala galo wadanka Iran warbixintu waxay intaa ku dartay in tallaabada uga fog baaliri maamulka Trump uu qaadi doono isla markaana Israel ay doonayso dagaalada in ay sii dheeraadaan oo dhibaatooyinka ay noqdaan kuwa aan xal loo heli karin isla markaana Israel ay doonayso colaadu inay sii baahdo Trump waxa uu soo jeedinayaa markan inaysan kaalin ku yeelan karin Israel weerarada lagu qaadayo wadanka Iran sida doodiisa uu dhigay xogayaha sare ee golaha amniga qaranka ee wadanka Iran ayaa ku dhawaaqay weerar kasta oo lagu qaado kaabayaasha dhaqaalaha ee wadankiisa in mid lamida lagu sameyn doono nidaamka Israel isla markaana aysan dhici doonin wadamada Carabta ee qaliijka in ay arrimahaasi bartilmaameedka oo kaliya ay noqon doonaan tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay weerar lagu qaaday xarunta nuclearka ee Bohshar iyo sidoo kale qaybo kamida wadooyinka xadiidka tareenka ee isku xira dhinacyada Tehran iyo sidoo kale magaalada Mashhad ee wadankaasi Iran Trump ayaa hore u sheegay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waliba nolosha dadka Iran in uu weerar ku qaadi karayo haddii dowladda Iran ay ku sii adkaysato dagaalkan in ay sii ballaariso xogayaha golaha sare ee amniga qaranka dalka Iran Mohammed Baqir Zulfikar
ayaa sheegay in si adag Iiraan ay uga jawaabi doonto weerar kasta oo lagu qaado kaabayaasha muhiimka ah ee wadankiisa. Mas'uulkan waxa uu yiri waxaan horay u cadeynay in weerar kasta oo loo adeegsado buu yiri kaabayaasheena ay la kulmi doonaan jawaabtaasi lamida. waxa uu intaasi ku daray in nidaamka Israa'iil ee dambiyada wada buu yiri kaas oo ka dambeeya falalkan gardarrada ah uusan ka badbaadi doonin jawaabta dagaalyahanka dalka Iiraan iyo ciidanka birlabka ah ayuu hadalkiisa ku sheegay. hadalkani waxa uu imaanayaa iyadoo ay aad u sii ballaaranayaan duqeymaha Mareykanku uu ku hayay saacadihii la soo dhaafay qaybo ka mid ah wadanka Iiraan. dowladda Jordan oo shalay la kulantay weerar xoog leh oo ay ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ay ku qaadeen wadankaasi ayaa iminka dib u qiimeynaysa dhibaatooyinka weeraradii ay la kulmeen iyadoo saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay wadankaasi Al-Asraq la yiraahdo ay la kulmeen duqeymihii ugu xoogganaa. sawirada gacmeeda oo la qaaday ayaa muujiyay dhibaatooyinka dagaalku in uu aad u sii xoogaysanayay daqiiqada ka dambaysa shalay, isla markaana dowladda Jordan ay dareentay in tillaabooyinkan haddii ay soo socdaan ay mushkiladu sii ballaaran doonto. war ka soo baxay dowladda Masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in Urdun ay kaalmo iyo garab ka helayso dowladda Al-Qaahira sida madaxweyne Cabdifitaax al-Siisi xafiiskiisa madaxtooyada laga soo xigtay. dowladda Urdun ayaa qaaday tallaabooyin degdeg ah oo dhinaca amniga iyo difaaca ah kadib markii mar kale cirka isku shareertay xiisadda gobolka, taas oo ka dhalatay go'aanka madaxweyne Donald Trump uu sababay in weerar cusub lagu qaado gudaha wadanka Iiraan. sida lagu sheegay warbixin ay u daabacay wargeyska Ra'yul Yawm, hay'adaha amniga iyo ciidamada Urdun ayaa saacadihii la soo dhaafay hirgeliyay qorshayaal degdeg ah oo ku saabsan howlgallada iyo waliba xaaladaha degdega, waxaana dib loo howlgeliyay nidaamyada difaaca la socodka gantaalaha iyo sidoo kale in dib loo eegayo qorshaha la xiriira is socodka diyaaradaha haddii xaaladaha amnigu ay sii xumaadaan sida warkaasi lagu sheegay. hay'adaha amniga qaranka Urdun ayaa si dhow ula socda dhammaan isbedelada ka soconaya gobolka iyagoo xoogga saaraya ilaalinta amniga istiraatiijiga ah ee wadankaasi ayaa lagu yiri warka dowladdu ay sii daysay oo looga hadlayay xaaladda ka taagan wadankaasi. wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay in xarunta qaran ee maareynta dhibaatooyinka Urdun lagu qabtay shirar heer sare ah oo ka hor baa yiri intaan si rasmi ah loo shaacin in ciidamada difaaca cirku ay soo rideen 8 gantaal oo Iiraan laga soo gamay, kuwaasi oo la sheegay in ay wajahayeen bartilmaameedyo ku yaala gudaha boqortooyadaasi. ila wareegyada Urdun waxa ay sheegayaan in la dhaqan geliyo habraacyo gaar ah oo la xiriira xaaladda gobolka iyo waliba ciidamada in la geliyo heegan aad u sareeya, isla markaana la diyaariyo qorshayaal lagu ilaalinayo duulimaadyada rayidka ee deegaanadaasi. si kastaba ahaatee dowladda Urdun ma aysan shaacin bartilmaameedyada ay Iiraan damacsan tahay in ay weerarto baa la yiri saacadihii la soo dhaafay. marka laga yimaado warka ka soo baxay dowladda Urdun oo shalay duqeymaha adag kala kulantay ciidamada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, dhinaca kale dowladda Masar ayaa war ka soo saartay weeraradaasi. dhanka kale wasiirka amuraha dibadda ee Masar Dr. Badri Abdulcaadi ayaa u sheegay dhigiisa Jordan in wasiirka la yiraahdo Ayman Safadi in Masar ay si buuxda u garab taagan tahay Urdun iyadoo cambaaraysa waxa ay ku tilmaantay weerarada gardarrada ah ee dowladda Iiraan ay qaadayso. labada wasiir ayaa hadal telefoon ku wada yeeshay xaaladda gobolkana iska wareystay, waxaana ay si wada jir u cambaareeyeen weerarada lagu eedeeyo Iiraan ee ka dhanka ah dalalka Carabta, iyadoo la sheegay inay halis ku yihiin amniga, madax banaanida iyo xasiloonida wadamadaasi. dhinaca kale wadamadan Carabtu ilaa iyo hadda ma aanay cambaarayn weerarka dowladda Mareykanku ay ku qaadeen gudaha wadanka Iiraan. warbixintu waxay xustay in hadalka Masar iyo Urdun uu noqday mid ka adag baa la yiri sidii hore, iyadoo labada dal ay si cad u cambaareeyeen waxay ugu yeereen kororka qatarta falalka Iiraan ee sii xoogaysanaya. dhinaca kale wasiirka amuraha dibadda ee Jordan Ayman Safadi
ayaa sheegay in boqortooyadu ay sii wadi doonto dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta muwaadiniinteeda, amniga, xasiloonida iyo madax bannaanideedaba. waxaana sidoo kale ay caddeeyeen baa layidhi in Urdun ay si buuxda ula safan tahay dalalka golaha iskaashiga khaliijka ee GCC. tallaabo kasta oo ay qaadaanna ay kaga hortagi doonaan weerarada dalka Iran ay ku hayaan dalalkaasi Carabta. dhinaca kale ila ku dhow xarumaha go'aan qaadashada ee Urdun ayaa ku eedeeyay garabka mayalka adag ee ilaalada kacaanka ee dowladda Iran inay ka dambeeyeen qorshayaasha lagu doonayo in Urdun lagu daro liiska bartilmaameedyada gantaalaha, iyagoo ay wehlinayaan Kuwait iyo Bahrain intii lagu guda jiray mowjadihii ugu dambeeyay ee xiisadda sii xoogaysanaysay. ila wareegyadu waxay sheegayaan in aanu jirin sabab ciidan oo muuqato oo Urdun looga dhigi lahaa bartilmaameed, taasoo ay ku fasireen inay ka dambeeyeen ujeeddo siyaasadeed oo lagu doonayo in Urdun lagu galiyo xiisadaha dagaalka ee sii ballaaranaya.